بسم الله الحمد لله waxaan si buuxda u bogaadinayaa go'aankii ay maanta gaareen golaha wasiirada xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya oo ay uga laabteen dambigii taariikhiga ah ee lagu la kacay ururka gobonimo doonka ah ee ONLF iyo Hali Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax shirka golaha wasiirada oo dhacay 2017 ee lagu dhabar jebiyay ururka ONLF waxa uu ahaa dulmi iyo hagadaamo lagu la kacay walaalo Soomaaliyeed oo muddo dheer dhibaato ku soo jiray waxa uu ahaa go'aan aad u foolxun oo mugdi iyo urkutaalo ku reebay ummadda Soomaaliyeed guud ahaanteed waxa uu ahaa ficil malaayiin Soomaaliyeed saameeyay oo ay niyadeeda taabatay waxa ay ahayd in go'aankan yimaado waqti hore laakiin waxa uu uga mahad celinayaa xaqiiqdii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo qaatay go'aan taariikhi ah oo dib u soo celiyay karaamadii iyo sharafkii ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed waxa ay soo martay xaalado kala duwan waxaana muhiim ah in laga shaqeeyo isku soo dhaweyntooda dib u heshiisiintooda iyo guud ahaan walaaleyntooda dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajeynayaa guul nabad walaaltinimo iyo in doorashada si nabad ah ku dhacdo kuna dhacdo waqti loo asteeyo insha Allah بسم الله الحمد لله waxaan si buuxda u bogaadinayaa go'aankii ay maanta gaareen golaha wasiirada xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya oo ay uga laabteen dambigii taariikhiga ah ee lagu la kacay ururka gobonimo doonka ah ee ONLF iyo Hali Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax shirka golaha wasiirada oo dhacay 27 bishii March sanadkii 2017 ee lagu dhabar jebiyay ururka ONLF waxa uu ahaa dulmi iyo hagadaamo lagu la kacay walaalo Soomaaliyeed oo muddo dheer dhibaato ku soo jiray waxa uu ahaa go'aan aad u foolxun oo mugdi iyo urkutaalo ku reebay ummadda Soomaaliyeed guud ahaanteed waxa uu ahaa ficil malaayiin Soomaaliyeed saameeyay oo ay niyadeeda taabatay waxa ay ahayd in go'aankan yimaado waqti hore laakiin waxa uu uga mahad celinayaa xaqiiqdii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo qaatay go'aan taariikhi ah oo dib u soo celiyay karaamadii iyo sharafkii ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed waxa ay soo martay xaalado kala duwan waxaana muhiim ah in laga shaqeeyo isku soo dhaweyntooda dib u heshiisiintooda iyo guud ahaan walaaleyntooda dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajeynayaa guul nabad walaaltinimo iyo in doorashada si nabad ah ku dhacdo kuna dhacdo waqti loo asteeyo insha Allah